dawladnimada lagu soo ururiyay meesha la keenay maanta hadduu xilka ka degan ninkaasina meesha cid isugu imanayso dambe ma jiraan waxaan ku sheegayaa hadduu kulmiyahayagii yahay axmed siilaaya maanta fadhiya shirka bal maxay kula tahay in waxyaabaha aad sheegto dhan ay u suura gelisay cidda aad leedahay ama madaxweynaha aad ku eedeynayso in uu taladii maroorsaday oo uu keligii isagu meesha ka talinayo waxa u suurtageliyay waa aad iyo aad u fududay maalintii uu yidhi guddi fulleed baa fadhiisto gudoomiyihii golaha dhaxal xilka ka qaad ee golaha dhaxal isugu yeeray xaruntii xisbiga wixii ka dhacay waa ogeeyay wixii ciidan la dhigay waa ogeeyay waxa lay adeegsaday awoodii dawladnimo ciidankii hay'adda inuu sharciga fuliyo ayaa loo adeegsaday sharci darradii simbali inta keentayna waa intaa waay intan imika ay socotay qabanqaabada shirweynahan afraad ee xisbiga kulmiye waxa jira mas'uuliyiin xisbiga ka tirsan oo warbaahinta la hadlay oo sheegay in loo diiday inay tartanka ka qayb qaataan iyada taa lafteeda bal ka war sababta waxa weeye loogu diiday oo sidaa sheegayoo nin qoreedee taladu ka gooda tusaale hadda kuu siiyo maxamed ibraahim qabyatire waxaa la soo weydiinayey qabyatire in laga qabto lacagta iyo in kale waxaa la soo weydiinayey xaajigii baa yidhaha ka qabanina waxyaabaha qaladka iminka waa markii u horraysay ee guddi qabanqaabo ay shuruud musharaxiin sheegto musharaxiintana marka shirku fadhiisto ayuu qof soo jeedinayay lacag la kaale intaasa soo dhig waa maxay waxaas miyaa la baayaca dadka noloshii ma lacag baa loo beddelayaa qofkii aqoonta lahaa ee wanaagsanaa ee hoggaaminta lahaa ee aan lacag tahay kii nadalka ahaa ee bilaa caqliga ahaa ee lacag tahay labadaas markay isbarbar yimaadaan maanta waxay doorteen soo maaha kii ee lacag tahayey ayaa laga doortay soo maaha kii hoggaaminta lahaa ee waxqabadka yeelan lahaa ee waxtari lahaa ummadda waa ayaan darro wey waayahay siyaasi jaamac haddaynu ku soo noqonno bal shirka maanta madaxweynuhu khudbad buu ka jeediyey waxa uu sheegay in muddadii uu joogay madaxweynuhu ay waxqabad badan sameeyeen isla markaasina muddadii 10 sano ahayd ee xisbiga kulmiye uu dalka hogaaminayay ay dadka iyo ummadaba ay mideeyeen bal arrintaa ka waran adigu khudbaddii laga filayay iyo wixii dhow toona ka bahada waxqabad buu ka sheekeeyey waxqabadka intuu waxqabadku ka sheekeeyeyba waa intii xukuumaddii Siilaayo ay fulisay mashaariic lamatiintii joogtay mashaariic socotay iyo qaar si saxiixdo barnaamijka ku jiray waxa uu isagu soo kordhiyay wuxuu ku daray barnaamijkan shaqo qaranta khudbadiisa inta kale sheekeehay midnimada ummadda uu ka been sheegay si cad uga been sheegay Soomaalidu waxay tiri meyd maxaa u dambeeyay kala siisto baarlamaankii la shalayto xeerkii doorashada yiraahdeen waanu ansixinayna way ka baxeen beeli barigii galbeedka iska dareeray iyagoo diidan qodob xeer ku jira jirsi wala jirsi la yidima baahdan wada tashigi iyo taladii ummadda iyo midnimadii halkay ka unkamis halkaas ay hayday ma taasa midnimada ummadda weyn iska dhaafo wuxuu soo celi kari waayay labisteedkan ee golaha wakiilada isku soo celi kari waayay kuwana oran kari waayay warukaadii hadday baxeen waa balkaale maxaa ka baxdeen war wada hadla waxa ku midaysantiinii kaala markaas ummadda ka hadlaya mashaariicdan u sinay buu yidhi gobollada oo dhan wuxuu sheegay khudbadda uu sheegay hal mashruuc oo uu bargeeyey ama deegaamada hartigu degay laga sameeyey wuxuu sheegay intuu sheegay waxay inta xukuumaddiisii la samaysay halka ay ku jirtay waxay ahayd ee uu ku hanan kari lahaa isaga oo siyaasaddii Axmed Siilaayo dhammaystirka maamulka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobollada dhan la gaarsiinayo siyaasaddii halkii ka sii wada isagoo heshiiskii khaatimo uu Axmed Siilaayo uu la galay isagoo heshiiskii fuliya waxaan arkaa inuu sii kala diray uma arkaan ummadu mideeyay